hadalkii muusan dhamaysanin asagii ayaa gurigii soo galay. markaas wuxuu yiri hooyadee miyaad iga dacwoonaysaa? toore ayuu la soo baxay, habartiisu meesha taagan tahay ayuu halkaas ka geliyay. wiilkii meesha ayuu ku ruux baxay. waxaa la dhahaa Abuukar Mukhtaar lahaa. wuxuu ahaa saaxiibkiis ay hadda dhow wada joogeen soona wada casheeyeen. taleefankiisii ayuu ka soo xaday. markuu taleefankiisii ka daba yimidna qoorta ayuu middo uga jaray. ku soo dhowaada sheekada oo dhammaystiran rukumana channelkan inta aanan sheekada daawan. dhacdooyinku dunidu waa isdaba joog, mar walbana waxaad arkaysaa waxyaabo ku argagax geliya. sheekadani waxay ka dhacday magaalada Muqdisho 5 maalin ka hor. waa 2 wiil, mid ka mid ah ayaana halkaasi lagu dilay oo qudha laga jaray. midka wax dilay hooyadiis iyadoo eegaysa. sheekadoo dhammaystiran waa tan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. shalay waxaa la dilay wiil aan qaraabanahay. waxaa lagu dilay mobilkiisa. wuxuu degan yahay Tarabuunka Soomaaliya sida u taqaan xaafadaas. ninka dilaayo intuusan dilin ka horna waa isla casheynayeen. gurigiisa mid uu ka casheynayay. markay isla casheeyeen asagii wuu kacay, marxuumkii qolkuu galay. ninkan mobilkiisa jaajar ugu jira ayuu jaajar ka siibtay. wuu qaatay. gabadhii arkaysay waxay tiri telefoonkaagii waxaa qaatay hebel fara badan, magaciisa kale ma garanayo. xaaskiisuu la joogay, ilmihiisuu la joogay. wiil iyo wuxuu qabaa 2 gabdhood. wiilkiisu wuxuu yiri labadan iga shumi ab uma maleynayo yiri caaw inaan ku soo noqonayo. wixii ilaahay afkaaga ka soo qaaday waa guur, waa sheeko dhab oo dhacday weyn. wuu baxay. wuxuu u tagay hooyadiisa u tagay. ninka mobilka qaadana hooyadiisa u tagay. wuxuu yiri hooyo wiilkaagii mobilkayga ayuu iga qaatay. min fadlan waxaan ka codsanayaa yiri inaad iga soo qaado. hadalkii muusan dhamaysanin asagii ayaa gurigii soo galay. markaas wuxuu yiri hooyadee miyaad iga dacwoonaysaa? toore ayuu la soo baxay, habartiisu meesha taagan tahay ayuu halkaas ka geliyay. wiilkii meesha ayuu ku ruux baxay. waxaa la dhahaa Abuukar Mukhtaar lahaa. wuxuuna ku dhashay Buluxube ayuu ku dhashay. subxaan allah. asagii meeshuu ku baxsaday. hooyadiisa horteedana wuxuu ku dilay, marxuumkii ku dilay. 2 wiil iyo 2 gabdhoodna adduunyada wuu dhaafsiiyey. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay waxaan uga baryaa inuu samir iimaan ilaahay inaga wada siiyo, jannada firdawsna inuu ilaahay ka waraabiyo. micnaha dhibaatada jirta waa arkaysaan. waxaa keeni karo qof dagaaladii dhashay. wuxuu ku dhashay dhac, boob, dagaal, handadaad. micnaha ma yaqaano sharciya. marka qofkaasi kusoo barbaara saas marka way adag tahay 30 sano inaad ka dhaadhiciso inuu sharci jiro, inuu kala dambeyn jiro. waana fiiri xaq darada, dhibaatada fiiri Soomaaliya. macnaha wax badan ay u baahan tahay in la qabto. wax badan ay u baahan tahay in la qabto. asxaabi u duceeya waxa waa maalintiisa ay halkaas ku ekeed. waxaa kaaga sii daran gabadha uu qabo oo caruurta 3 caruur u dhashay. kan dilaayo waa qaraabo isku dhow waayo oo aad isugu dhow. subxaan allah. ilaahay samir iimaan allah inaga wada siiyo. caruurtii uu ka tagayna ilaahay macnaha agoomankaas uu ka tagayna ilaahay waxaan ugu baryayaa inay gacan fiican oo midig fiican inuu ilaahay ku qabto oo barbaariyo. hooyadiisan samir iimaan inuu ilaahay ka siiyo, anagan samir iimaan inuu ilaahay naga siiyo, jannada firdawsna allah ka waraabiyo, qabrigiisan ilaahay waasac uga dhigo. waadin salaam.